warahmatullahi wabarakatuh. maxaad ka taqaanaa hooyada dekedaha geeska Afrika? dekedaha Afrika waa Satuba. kaalay soo raaco ila arag dekeda Berbera. waa dekeda ugu weyn geeska Afrika, waana dekeda ugu istiraatiijisan Afrika oo dhan. 8 shay oo u gaara dekedaha Afrika ama hooyada geeska Afrika ee Berbera, Somaliland. ma jeceshahay inaad ila aragto? ma saxiisaynaysaa inaad ogaato 8 shay oo dekeda Berbera ay kaga duwan tahay dekedaha ku yaal geeska Afrika? Okay. dekeda Berbera waxay ku taalaa Jamhuuriyadda Madaxa Bannaan ee ku taal geeska Afrika, jamhuuriyadda ugu dimuqraadisan, ugu nabadda badan, ugu xorriyadda fiican, ugu nolosha wanaagsan geeska Afrika. waana jamhuuriyadda Somaliland. waxayna xuduud leedahay Ethiopia, Djibouti, Soomaaliya. dhanka badan waxay xuduud kala leedahay Yemen ama gacanka Cadmeed. 2. dekeda Berbera waxay isku xidhaa ganacsiyada adduunka ku kala socda 8% ee qaaradda Afrika u kala goosha ee ka imanaya from Europe, Middle East, Asia iyo America. 3. dekeda Berbera Somaliland waa deked si natural u samaysantay, maaha deked macmala ama deked la sameeyay. waa astaanta ay dekedaha geeska Afrika kaga duwan tahay. waana deked qadiimi ah oo qarniyo badan jirtay, kasoo bilow dowladda Ingiriiska, dowladda Talyaaniga, dowladii Turkida ee Cuthmaaniyiinta ee u kala dambeeyay. qarniyadaas oo dhan dekeda Berbera waxay ahayd deked la soo jaan qaadaysay ama soo jirtay. 4. dekeda Berbera Somaliland waxay ku taalaa meesha ugu istiraatiijisan ee laga maamuli karo amniga geeska Afrika, amaba waa albaabka laga soo galo geeska Afrika. haddaba ciidanka military base kule Berbera waxay gacanta ku hayaan istiraatiijiyadda amni ee guud ahaan geeska Afrika. waana sababta quwadaha waaweyn ugu loolamayaan mustaqbalka dhow iyo midka fogba inay Somaliland xiriir amni la samaystaan si ay u helaan saldhigyo ciidan. waana sababta Mareykanku u xiisaynayo xiriirka gaarka amni ee u dhaxeeya Somaliland iyo Mareykanka. 5. Somaliland waxay maalgashi la saxeexatay shirkadda ugu weyn caalamka ee ku caan baxday maalgashiga dekedaha caalamka. ugu yaraana kala badh gacanta ku haysa dekedaha caalamka, waana shirkadda DP World. muddo 10 ilaa 30 sano inta u dhaxaysa ayay ku maalgashatay hantidan 400 milyan. waxaana la rajaynayaa 10 sano ee soo socda inay Berbera noqoto gateway of Africa dhanka dhaqaalaha, maadaama ay ku taal albaab ganacsi ee geeska Afrika laga soo galo. 6. xiriirka Somaliland iyo Taiwan wuxuu noqon doonaa mid wax badan ka bedela geeska Afrika, mid wax badan ku soo kordhiya jamhuuriyadda Somaliland, mid wax badan looga faa'iideeyo dekeda Berbera. haddii madaxda Somaliland sida ugu habboon uga faa'iideystaan xiriirka dhammaan shirkadaha wax soo saarka kala duwan ee Taiwan, waxa uu bayskoodu noqon karaa dekeda Berbera. waxayna quudin karaan oo ay ka qabsan karaan dhammaan geeska Afrika, gaar ahaan shirkadaha tiknoolajiyadda. ha ugu horeeyaan ee wax soo saarkoodu waxay si dhib yar uga qaybin karaan geeska Afrika oo ay kula tartami karaan China, maadaama Berbera ay ku taal albaabka laga soo galo mandaqada geeska Afrika. Berbera waxay wax badan ka bedeli kartaa dhammaan shucuubta geeska Afrika. 7. dekeda Berbera waa dekeda keliya u adeegi karta wax ka badan 400 milyan oo shucuubta geeska Afrika iyo bartamaha Afrikaba. waana deked u samaysan inay quudiso dhammaan wadanada bilaa dekedaha, waana intii kaga horeysa dekedaha geeska Afrika ku yaal. Chairmanka DP World Sultan Sulaiman wuxuu hore u sheegay inaanay dekeda Djibouti iska daa wadanada bilaa dekedaha ayna u adeegi karin qaab dhismeedkeeda iyo kadeeda Ethiopia oo kaliya, halka Berbera ay u adeegi karto dhammaan wadanada bilaa dekedaha ee geeska Afrika, bariga iyo bartamaha Afrika ku yaal. 8. maadaama dekeda Berbera ay ku taal mandaqad xasaasi ah, waxay ku taalaa wadan furfuran, dhaqaalihiisu oo free market system ka jiro, lana odhan karo waa wadanka ugu nabdoon dad ahaan, siyaasad ahaan, kobaca dhaqaalihiisuna xawli ku socdo for the last 30 years u dambeeyay ama 30 sano u dambeeyay. Somaliland kama jiraan barcadbadeed, Somaliland kama jiraan argagixiso, Somaliland laguma dilo dadkeeda, Somaliland dadka bilaa dambiga ah lama laayo.
taasi waxay berbera u saamixi kartaa inay berbera noqoto albaabka laga soo galay geeska Afrika maadaama wax badan lagu majiiranayo jamhuuriyadda Soomaaliland habsami u socodka dhanka dimuqraadiyadda xorriyadda iyo nabadda ay wax badan muddadii 30 sano u dambeeyay ay ku naaloonayso haddaba sideeda shay ee ay kaga duwan tahay dekada berbera maxay adiga kula tahay maxaad u malaynaysaa inay ka tagay oo aad ku soo dari kartaa 8 shay oo kale oo aad oran karto way ugu muhiimsan tahay oo berbera waxay kaga duwan tahay dekadaha geeska Afrika halka hoose ee comment-ka nagula wadaag